maamulaha guud ee shirkadaha Dahabshiil Group Cabdirashiid Dahabshiil oo ka qayb galay shirka kahortaga cunno yarida iyo afooyinka sababa oo ay ka qayb galeen in ka badan 20 wadan oo lagu qabtay magaalada London ee dalkaasi Ingiriiska. maamulaha guud ee shirkadaha Dahabshiil ayaa waxa uu ka waramay doorka ganacsatadu ay ka qaadan karaan kahortaga cunno yarida dhanka horumarka iyo shaqo abuurka. waraysi uu siiyay laanta afka Soomaaliga ee BBC-da ayuu sidaasi ku sheegay. shirka muhiimadiisu waxa weeye culayska waxa la saaraya arrimaha cuntada iyo nafaqada ku saabsan. waxa lagu qiyaasaa 1 bilyan oo qof oo adduunka ku nool inay gaajo iyo dhibaatooyin ay la kulmaan. marka shirkan kale wuxuu doonayaa inuu wixii waxa wax laga qaban lahaa iyadoo la iskaashanayo ama ha noqoto dawlado ama ha noqoto hay'adaha samafalka ama shirkadaha ganacsatada ha noqotee wixii la iska kaashan karo arrimahaas in ay laga hadlo. muhiimaddu waxay tahay sidii loo yareyn lahaa macluusha ama gaajada caalamka oo dadka aanay cunto la'aan ugu dhici lahayn. sidee ayaa is leedahay waa lagu hortagi karaa marka in caalamka ay macluuli ka dhacdo? horta runtii caalamka runtii dhibaatooyin badan baa ka jira. mararka qaarkood hawadan isbedeshay lafteedu qayb bay ka tahay cuntada. dagaalada ka socda meelo badan oo adduunka ka jira oo waliba dagaalka nimanka Ukraine iyo Russia wuxuu aad iyo aad u saameeyay cuntooyinkii ka bixi jiray cimilada saameysay. dhibaatooyin kale badan baa jira. waxa soo dhan waxay keentay in cuntadii adduunka qabanaysay ay yaraato ama ay aad u qaali garowdo ama dad badan aanay awoodin dhaqaale ahaan oo gaajadu markaa ay sii badatay ama cuntooyinka nafaqada lahaa ay yaraadaan. taas baa markaa dad badan oo adduunka ku nool waliba wadamada Afrika u badan ay dhibaatooyin badan ka soo gaadhay dagaalka Yurub. shirkan waxyaalahaas la doonayaa in la yiraahdo maxaa wax laga qaban karaa, maxaa wadamada loo tari karaa, maxaa cimilada isbedeshay technology waxaan la yiraahdo loo isticmaali karaa. waayo marka beeraha iyo waxyaalahaas technology qayb bay ka tahay. waxaad soo hadal qaaday isbeddelka cimilada oo durbaba saameyntiisa laga dareemayo guud ahaan Soomaaliya. marka maxaa laga qaban karaa maadaama arrintani arrin cusub ay tahay oo dhibaatooyinkii hore u jiray kuwa ku soo kordhay ay tahay? inkastoo wadamada Afrika aanay ka mid ahayn dadka cimilada dhaawac badan gaarsiiya, wadamada warshadaha laba inta badan dhaawac badan gaarsiiya. cimiladaas daweyn la noolaada wax kale la qaban karayaa ma jirto. waa in laga diyaar garoobaa wixii laga diyaar garoobi karayo oo daalad badan baa imka dhulka Soomaalida ka dhacay. waad ogtahay abaaro xun baa ka dhacay hore oo meelaha qaar laga yaabay inay saameynteedii weli sii nooshahay. ilaahay nagu keenay qaar kale laga yaabay inay timaado. waxaas oo dhan waxay u baahan tahay diyaar garowgeeda. Soomaalida waxa kale loo baahan yahay inay ka shaqeyso sidii wadankooda wax uga soo saaran lahaayeen, inay badda ay kala soo baxaan cuntooyinka ay awoodaan oo xoolaha adiga ogaa bariga dhaweyd dhaawac badan baa ku soo gaadhay. waxaa jira kala duwanaansho farqi maaliyadeeda oo markaad caalamka fiiriso amaba xataa waddan kasta gudihiisa ah ay jiro. farqigaasi in la yareeyana waxay qayb ka qaadanaysaa in sugnaanta cuntada laftirkeeda horumar laga gaaro. arrintaasi wax loo qaban karaa kula tahay? horta adduunka weligeed way ka jiraysaa qof lacag leh iyo qof aan lacag lahayn meel jira iyo qof maaragtay xanuunsan iyo qof caafimaad qaba weligeed way jiray inta la nool yahay. dagaal iyo colaadina way jiraysaa. waxaas oo dhan waxa weeyaan laakiin laga diyaar garoobo qof walba wuxuu qaban karayo. shirkan haddii ku soo noqono wuxuu doonayaa in wadamada soo koraya ama wadamooyinka dhibaatadu haysato ay maaragtay caawiyaan. imka dawladda Ingiriisku waxay ku dhawaaqday sida socotay ra'iisul wasaaraha markuu hadlayay lacag $100 milyan oo dollar ayaan wadamada Soomaalida ay kamid yihiin aan ku caawinayna bay yiraahdeen. marka waxa soo wax la doonayaa in la iska kaashado. qasab Soomaalidu waa inay dagaalada badan ee wadanka meelaha qaar ka socda ay joojiyaan culayska ay saaraan nabadda cuntada ay raadsadaan. wadamo badan baa horumaray. imka Itoobiya kale shirka waxay ka tiri qomandadii dibadda waanu joojino anaga wadanka ay kala soo baxnay bay yiraahdeen. bariiskina waanu joojin doonaa anaga bariiska abuuranayna bay yiraahdeen. way bilaabeen. Soomaalidana taa mid lamid ah u taala inay gacmaha is qabsadaan oo ay wixii wada qabsan karayaan meel walba qabsadaan oo wadankooda u soo jeestaan. shirar hore ayaa jiray oo shirarkan oo kale ah oo looga hadlayay sugnaanta cuntada. marka kan muxuu kaga duwan yahay aad isleedahay kuwii horeeto? wuxuu kaga duwan yahay runtii marka waxaad moodaa in wadamadii dhaqaalaha badnaa ay doonayaan lacag badan geliyaan. shir baa isna soo socda oo kan gogoligu yahay oo Imaaraadka ka dhacaya oo isna COP28 la yiraahdo. shirkaas isaga laftiisu wuxuu culayska saarayaa arrimaha hawada isbedeshay ayaa gaajada lafteeda qayb ka ah. haddii dhirtii ay go'do, haddii roobabkii meelihii looga baahna aanay imanin ama roobab khasaare keenaya uu yimaado, dhaawac cunteed baa soo gaaraya. marka caalamka lacagta leh iyo kuwa laga yaabo in lacagtu ku yar tahayba in iskaashadaan ayaa culayska la saaraya. waliba shirarku mararka qaarkood faa'iidooyin badan bay leeyihiin. qasab wixii bay dadka xusuusisaa, dhibaatadii jirtay xusuusataa. shirkadaha Soomaalida ee waaweyn waxaan aragnaa inay wax badan ka qayb qaateen marka ay dhibaatooyinka dalka ka dhacaan, sida marka ay fatahaad dhacdo, abaaraha oo kaleeto, iyo guud ahaan kaalmeynta dadka danyarta ee tabarta daran. markaad ay timaado
in xagga horumarinta oo dadku cagahooda isu taagaan arrintaa wax ma ka qabataan waa run shirkadaha Soomaalidu horta caalamkii la mid yihiin annagu dahabshiil haddaan ka hadlo shaqal waddanka ka abuuraa intaan awoodno lacagahan dibadda ka imanaysa lafteedu horumarka ka qayb qaadato dadka qurba jooga ah qof walba jooga waddankiisa iyo dadkiisa inuu lacag gaarsiiyo qayb ka qaadana mashaariic leydhka jaban ama tamarta ah oo dadkii wax u fududeynaya waanu gelaynaa waxaasoo dhan waa ka hortag maaha ka daba tag inuu qofku isku filaado inuu dhaqaalihiisa abuurmo laakiin haddana baaxaddan guud ee adduunka ka socota ee ah dagaalada soconaya hawada isbedelaysa waxaasoo dhan wax shirkado kaliya wax ka qaban karayaan maaha sababtaasa shirkan dowladda UK ay u furtay oo ah shirkadii gaarka ee privateka hay'adihii samafalka ahaa dowladihii kuwii lacagta haysay kuwaan haysanba inay gacmaha isqabsadaan Caydiruus Maxamed Caynaan goobjoog magaalada Hargeysa bishaaro shirkadda isgaarsiinta Somtel waxay ugu bishaaraynaysaa macaamiisheeda sharafta leh inay u soo kordhisay xirmooyinka adeega Dhamays Plus waa xirmooyin mobile internet unlimited oo aad u qiimo jaban kuwaas oo shirkaddu ay ugu talagashay macaamiisha shirkadda isgaarsiinta Somtel macaamiil ku shuba $5 oo hel data internet iyo ku hadal aan ka dhamaanaynin muddo 7 ah sidoo kale macaamiil ku shuba $15 oo hel data internet iyo ku hadal aan ka dhamaanaynin muddo bil ah macaamiil ku dooro xirmooyinka adeega Dhamays Plus xawaare sare oo aan xaddi lahayn macaamiil uga shubo xirmooyinka adeega Dhamays Plus adeega idahab code numberka xidig 104 gees adeega idahab reseller code numberka xidig 304 gees ugu dambeyntii waxaad bedelan kartaa airtime-ka kuugu jira adigoo garaacaya code numberka xidig 204 gees macaamiil xirmooyinka adeega Dhamays Plus nafsadaada ku soor